qaar ayaa waxa ay lahaayeen madaxa shimbirta oo kale qaarna waxa ay lahaayeen dib ama seen iyo timo codkooduna waxa uu ahaa mid aad iyo aad u dheer oo laga argagaxo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو عبد الرزاق حاجي halkanani waa Barsan Media. Sheekada maanta aan idin hayo waxa ay u muuqataa mid malaawaal ah ama laga soo minguuriyay aflaanta ama wax loo yaqaan science fiction. Ka hor intaan sheekada aan bilaabin waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka subscribe aad noo saartaan taa oo noqonaysa mid anaga nagu dhiirigeliya horena aan u socono. Haddaba daawadayaal ku soo dhawaada sheekadeena maanta qaybteeda koowaad. sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay makhluuqaadkii ugu horeeyay ee dhulka lagu beera ka hor bini'aadanka makhluuqaadkani ayaa waxa ay lahaayeen sifooyin kala duwan kuwaasoo ayaga gaar u ahaa kana duwnaa qaabka bini'aadanka ama sifada bini'aadanka maanta uu leeyahay markuu Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay insaanka waxaan u abuuray qaabka ugu wanaagsanaa ee noole aan u abuuray waxaad garwaaqsan doontaa aayadaasi inay sax ay tahay markaan kaga sheekeeyo qisadaani ama makhluuqaadkani astaamooyinka ay lahaan jireen sheekadaani waxa ay ku qoran tahay buugaag kala duwan oo ka sheekeeya taariikhda aadanaha iyo koomka waxa soo maray waxa ugu caansan kutubka ee lagu magacaabo al-bidaaya wal nihaaya ka uu qoray caalimka weyn ibn kathir sifooyinka makhluuqaadkani ay lahaan jireen waxa ka mid ah in qaar ka mid ah makhluuqaadkani ay lahaayeen baalal fara badan dabcan waxay u adeegsan jireen inay ku duulaan qaar ayaa waxa ay lahaayeen madaxa shimbirta oo kale qaarna waxa ay lahaayeen dib ama seen iyo timo codkooduna waxa uu ahaa mid aad iyo aad u dheer oo laga argagaxo qaar iyaga ka mid ah ayaa waxa la bariyaa inay lahaayeen ama ay u ekaayeen qof barkii sida in hal gacan iyo hal lug inay leeyihiin oo kaliya haddaba daawade sidee kula muuqataa qof hal lug iyo hal gacan leh inuu socon karo halka qaarkooda ay lahaayeen wajiga hore ama qaybta hore bini'aadan inay ka yihiin halka qaarka dambana ama dhabarkana ay ka ahaayeen muuqaalka didiinka oo kale waxaa la sheegaa qaarkood in madaxa ay ku lahaayeen geeso hadalkoodana uu ahaa sida eyga oo kale inay u ciyaan qaarkood ayaa waxa ay lahaayeen laba waji oo ku kala yaala mid hore iyo mid gadaal makhluuqaadkani waxa ka mid ah makhluuqaad lahaa timo cadcad iyo dibka lo'da oo kale waxa ayna lahaayeen foolal soo baxsan ama dhaadheer ama ilko dhaadheer iyo dhego aad u dhaadheer haddaba makhluuqaadkani ayaa waxa ay lahaan jireen magacyooyin kala duwan oo sida alxin albin almin addin iyo annis waxaa la sheegaa in makhluuqaadkani iyaga dhexdooda ay isbaabiyeen oo adduunka iskaga tirtireen waxa ugu horeeyay makhluuqaadkani makhluuqaad lagu magacaabo albin kaas oo laga abuuray dixri aad u weyn oo markii dambe noqday daayar meel taagan albin ilaa markii dambe uu gaboobay oo dhintay waxa uuna ku milmay dhulka iyo ciidda albin ayaa waxa la bariyaa wuxuu tirtirmay u baabacay markuu ka soo baxay geedka ee afka carabiga lagu magacaabo ad-daxaalib biyaha hoostooda ka soo baxay albin markuu dabar go'ay waxa ku xigay makhluuqaad lagu magacaabo alxin ka uu abuurmay qaabka geedka oo kale alxin maadaama uu quudan jiray macdanta dhulka ku duugan waxa uu la dagaalamay albin ka oo markii dambe uu baabiiyay tirtiray kadibna qaatay ama yeeshay qaab dhismeedkooda iyo wixii iyaga ka soo haray waxa la bariyaa alxin iyo albin markii ay midoobeen waxa abuurmay noole kale lagu magacaabo addin qoomkani addin la yiraahdo ayaa waxa ay ka abuurmeen qalfoofta geedaha iyo dhoobada dhulka waxa ay cuni jireen ama ay quudan jireen makhluuqaadka ku dhex nool badda hoosteeda addin ayaa waxa la sheegaa inuu yeeshay xaraga ama maqaarka xayawaanka oo kale kadibna waxa uu ka awood batay noolayaashii isaga ka horeeyay ee albin alxin halkani waxa ku eg sheekadeena qaybteeda koowaad ee ku saabsaneed
ama aan ku soo qaadanay qoomkii ugu horeeyay ee Allah subxaanahu wa ta'ala ku abuuray koomkaani waxa inoo balan ah hadduu Ilaahay raali ka noqdo sheekadaani oo dhameystiran iyo qaybteeda labaad